السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وين السلام يا والله قاليga waa anigu kiisa jaamac Buurdaan waxaad ila fiirsataan oo ila daawataan bal murugada inta leega caawi maanta haysa gabadhan sida loo garaacay nimanka Sacuudiyaanka u garaacayeen u jildilayaan u baroorana salada iga qabtay bal ila fiirsada halkaas gabdhaheena marayaan ragow halkaas gabdhaheena marayaan siyaasiyiinta kuwa isku sheegayo halkaas marayaan booliska kuwa isku sheegayo halkaas marayaan gabdhihii Soomaaliyeed madax isku sheeg wala askari wala ra'iisul wasaare wala baarlamaan wad khaldantiin hana ka rar safaaradda Sacuudiga Soomaaliya laga furay gabdhaha iyaga inta la daad gurayeen lagu khasab lagu shaqeysto la garaaco idinka lagu kalifay idinka la inay haysta wallahi billahi tallahi habeenka aakhir wayni marakacaya sharaf dhaca gabdhaha iyaga u geysateen dulmiga dalka ay ka geysateen urxumadan maalin walba noo arsadeen qaxoontigana ku daalay taariibtana ku daalay bal gabdhaha iyaga daawada si loo garaacay alla inuu ku dhaariyay ila qaybsada shacabku waad la yaabtaan maalin walba marka meesha ka qaylinayay waxaan la qaylinaya balaarka bal gabdhihi si loo leynayo dawa ilaahay baynu ku dhaashay gabdhihi Soomaaliyeed si loo leynayo ee u dilashay u barooraan say la qaybsada murugadan aad baan uga xumaay aad iyo aad abwaan tuwaal baa wuxuu yiri maantaan ceeb iyo guuldarro garbaha iga saar maanta gabdhihiigii guri Sacuudi joogo ay digsiyada u walaaqaan marna wiil yar Sacuudiya u garkiisa saartaa wata maanta gabdhihii Carabta gabdhihii Soomaaliyeed gabdhihii Carabta taalo gabdhaheena Soomaaliyeed naga ka dhigna Soomaaliyeed بالله بان ku dhaashay gabadhaas ee baroorans bal samxaad dareentay bal samxaad ogaatay ma shacabka khaldan ma madaxda khaldan ma Sacuudiga khaldan nacala aboodkiyalka Carabta ku sheega ee dhahaya waxaan deganahay meesha xaramka Nabi Maxamed Cali salaatu wasalaam ku asnaaya xajka aad degan ee xuquuqda bini'aadamka saa uga talaabsanaya miya la noolaan karaa soo loo shaqeyn karaa mise xuquuqda islaamnimada ku ciyaarayaan mise dadkaas islaam u dhow war Soomaali dad baa ini qaaday dulinimadu dambeyseen Soomaaliyan isku tirsanaano warsha Soomaaliyeed gacmaha isqabsano gabdhaheenu saa sharaf dhicoodu ma dhimacdeeteen gabadha sharaf dhiceeda baleek gabadh Soomaaliyeed oo dhan saas u sharaf dhacda hadaad been moodaysan ragga klibiyada ka duubaya Soomaalida ee cumursho lagu horeeyaan talaabada degdeg waa in laga qaadaa sharcigana waa in la tiigsadaa